wuxuu ahaa safar dhulka iyo badda ah. Waxaan barqal kulul ka ambabaxnay magaalada Kismaayo. Waxaan u soconaa deegaan xeebeedka ku dhex oo Kismaayo u jirta qiyaastii 130 kiiloomitir kagana beegan dhanka koonfureed. waxaanu sii socon doonaa in muddo ah oo aanu sii mari doonaa bad iyo berriba. hawsha maxaa ka jira meesha maxaa ka jira soo wajahayn magarad waqooyiha dhinacana meel agtana inta aan safarka ku guda jirnay waxaanu sii marnay tuulooyin kala duwan halkaas oo ay ka muuqato nabad iyo neecow. waxaanu soconnaaba meel dhex ayaanu casaradii ku yara nasannay, halka ayaana kasii socdaalnay. waxaan nabad ku tagnay deegaan xeebeedka tuulada Istanbul. halkaa ayaan isku dhaafay annaga iyo berrigaba, annaga oo ka raaci doona doomo halka noogu diyaarsanaa. Istanbul Kismaayo waxay u jirtaa qiyaastii ilaa 90 kiiloomitir. waxaa babanaya calanka buluugga ah. waxaa halkaa kaaga caddaanaysa in dhulku nabad yahay. waxaan casar gaaban u sii ambabaxnay dhankaa iyo halkaan u soconnay ee magaaladii ku dheeahayd oo noo jirta qiyaastii ilaa 40 kiiloomitir. waan tagnay oo alle waa nagu nabadgeliyey safarkii. waxaana si degan uga degnay deegaan xeebeedka ku dhex oo jasiirad ku taal gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta Soomaaliya, bartamaha badweynta Hindiya. 30 kiiloomitir ayay koonfur galbeed ka xigtaa magaalada Kismaayo. jasiiradda ku dhex waxaa soo maray dagaallo kala duwan oo u dambeeyey dagaalkii dhacay 21 Janaayo ee sanadka 2026. 21 Janaayo subax Arbaca ah, subax ka duwanaa subaxa kale. salaadii subax ayaa lagu waabariistay dhawaqa rasaasta noocyadeeda kala duwan. subaxaas waxaa weerar gaadma soo qaaday kooxda Al-Shabaab, waxaana halkaa ka dhacay dagaal faraha la isaga gubtay oo u dhexeeya ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo kooxda khawaarijta. aroortii waagu nabad waa noogu beriyey. magaalada jawigeedu waa degan yahay, waxaana ammaanka si buuxda gacanta ugu haya dowladda Jubbaland, gaar ahaan ciidanka daraawiishta Jubbaland iyo kuwa aad bay u shushan tahay. waa la soo noqday ganacsigeedu waa 100%. ciidamadu 4 kun oo ka jiraan, xeelada kale iyo xeelada hoose way jiraan, xeelaha way degan yihiin. amnigu waa 100%. wuxuu dagaalku socday in ka badan 24 saac. ugu dambeyn waxaa dagaalka ku biiray ciidanka kumaadooska darab, halka ay cagta mariyeen haraadigii dagaalamayaasha ahaa ee Shabaab. magaalada dhan waxaa buux dhaafiyey meydadka iyo dhaawaca kooxdii weerarka gaadmada ahayd soo qaaday. goob kasta
od istaagtaba waxaa indhahaagu u qabanayaan haraadigii kooxda khawaarijta. waxaanu la joognaa oo garabkayga taagan gudoomiye ku-xigeenka degmada Badhaadhe gudoomiye Xabiib soo dhow gudoomiye. waa dhawaa saaxiib maasanta aad u maasanta gudoomiye. la soo dhaafay halkan waxaa ka dhacay dagaalkii faraha la iskaga gubtay wacdaraha laga dhigay kooxda khawaarijta lagaga dilay 300 iyo ka badan. bal gudoomiye hal iyo labo naga sii dagaalka maalintaas iyo xaaladda maalintaas. منور aad baad maasan tahay horta wararkaas sheegtay waxaan ugu jiray waa tuuto waxaan u maleynayaa anaga waxaan u shaqeynaa arrimaha bulshada maadaama aan bulsho qaabilsanahay laakiin waxa hadda ugu jiray waa tuuto waxaan ugu jiray waa dareemi kartaa colaadda ka jirta deegaanada ay ahayd haddana waad arkaysiin oo soo afjarnaa colaadda ka jira deegaanada waa iska laaloonahaynaa deegaankii waan iska joognaa nabad ah warwaaqaysanahay waa ka ku soo dhow Munir deegaanka aad iyo aad gudoomiye ilaahay ka sokow idinka horta idinka sabab u ah inaan nimaadno oo waliba si nabad aan ku nimaadno magaal xeebadka ku dhaa waa maasanta Munir hawsha aan ku jirno waa ogtahay rag badan baa u dhawraadkay halyeyada Jubbaland ayaa habeen iyo maalin u taagan maadaama mas'uuliyiinta aan nahay rag dhalinyaro ah oo u taagan habeen iyo maalin deegaanada jooga Jubbaland meel kasta waxay ka dhacaan qoorisaana loo baabiinaya waxaan leeyahay halaha dhiman durku ku jiro in isa soo dhiibana dhiilaayo dacafis baa loo fidinay ilmo yar la soo qalday marka annaga kuma qaldamayna qaladaadka ay sameeyeen ma sameyn doona insha Allah waan soo dhaweynayna halaha yar ku jira durkana waxaan leenahay hadii ay maqlayaan ay isa soo dhiibana soo dhiibay aad baad mahadsantihiin shaqo fiican baad haysaan runtii wacdara adagna meesha waad ka dhigteen waa rajabisay khawaarijta maalintaana maalin waxay ahayd laba maalin waxay ahaayeen taariikh leh oo dhammaan bulshada reer Jubbaland taariikh weyn maaragtay u leh bay horta ahaayeen marka waan idinka mahadcelinaynaa shaqada fiican aad haysaan guul baan idin rajaynaynaa gudoomiye. waa mahadsan tahay. ugu dambeyn 24 saac gudaheed magaalada waxaa gacanta ku dhigay ciidanka daraawiishta Jubbaland iyo kuwa kumaandooska danab oo isgarabsanaya. haddana waxaan la joognaa gudoomiyaha magaalo xeebadka ku dhaa gudoomiye soo dhawow. waa dhawahay alxamdulillah waa aad baan u fiicanahay hada ku dhaa waa u jeedaa waataan haddaan dhex taagannahay hada ku dhaa dagaalo ba'an ayaa ka dhacay nimanka khawaarijta ayaana soo weeraray hada jabkii gaareen waa ogsoon tahay aad iyo aad ilaa 250 halkan ugu dilnay wax alla wixii gaar haysteen waa ka gubnay iyo waxaan kala harnay oo hadda gadaasheena ka muuqdo waaya hada ku dhaa ku soo dhawaada waa nabad lagu naalon hayo geesiyada Jubbaland iyo geesiyada dalka ayaa noo keenay ilaahay ka soko ku soo dhawaada ku dhaa dadkiina timaadeen colaad ay ka dul dhacday adiguna iska kacay ku soo dhawaada. aad iyo aad gudoomiye saaka waa la tutaysan yahay xaaladda iyo maaragtay waxa meesha ka jiray cadeynaysa saaka waxa way gudoomiyaha dhihin waxa way gudoomiye ku-xigeen ha dhihin saaka waa la wada tutaysan yahay gudoomiye bal hal iyo labo subaxaas dagaalku uu dhacay runta magaalada gudaheeda ayuu ugu qabsaday delism weydina dagaal 24 saac socday oo gacanta la soo tagay ayaa ka dhacay dhimasho iyo dhaawac la kala jiitay alxamdulillah anaga un bay guushana raacday ma sha Allah sax guushana hadda ninkii u haray un baa iska leh taqabarayda ilaa hadda farxadkooda ilaa hadda waa maqan dhulka ilaa hadda lagu bursan hayaa ka ku soo dhawaada magaaladiini gudoomiye xafiis iska joogo oo buug yaqaan haysta arkaysan hadda ku socday mukeef ku socday laakiin hadda waa gudoomiye tootaysan oo jiida hore joogo furta oo naftiisa hore aad u tamaado ku soo dhawaada shaqo fiican baad haysaan aad iyo aad baad mahadsantihiin waxa weeye mukeefkii iyo gaarigii qaboway lagu socday waa la iskala baxay hadda duurka la isla tagay duurka difaaca waxa leeyahay dhammaan xooga Jubbaland iyo noocyadooda kala duwan iyo gudoomiyaasha iyo saraakiishu aad u mahadsan yihiin shaqo fiican baad haysaan waana mahadsantiin gudoomiye aad iyo aad baad mahadsantiin.